magaalada Beledweyne waa gobolka Hiiraan waa gobolkan aniga u dhashay waa gobolka Igraan Tahliil u dhalatay maanta waxa u soo socdo inuu xil ka qaado asagoo ku gambanayo Fahd Yaasiin u soo socdo gobolka Hiiraan asagoo raba inuu xil iyo xasaanad ku qaato oo isku qariyo hadduu ku qarsoomaa mana imaan karo mana imaanayo aniga iyo gabadhayda waxaan ka dhalanay laba qabiilo dawladda 4.5 ay ku dhinsantahay maxaan ku dhahay labada qabiilo oo gobolka Hiiraan u waaweyn aniga gabadhayda ka dhalanay gabadhayda Gaaljecel Samoobay ka dhalatay Gaaljecel weyne maanta waa nimanka geelooda hadii la qaado habeen oo ku barin mooro kale oo ku barin way oo Fahd Yaasiin ugu soo socda marka asoo gabadhoodii ku maqan tahay damiirkii iyo dadnimadii intee aad aniga waxaan ka dhashay xawaalo weyne weligood cadawgoodii soo huliyay weligood libinka ma qaadin waa nimankaas maanta gabadhoodii ayagana ina maanta maxaan ku dhahay Fahd Yaasiin oo Baraland oo kursi u soo doonto ma dhici karto Soomaaliya ay ogaada gabadhaydii maalintii la dhibaatay ilaa yoomul hada waa la iska daba meereysana ila meereyso sidii rati macsara shiidaayo welina way u dhimantahay waxaan u sheegayaa dadka Gaaljecel iyo xawaalo magaalada Beledweyne ku nool dhiig iyo us haday leeyihiin maanta Fahd Yaasiin arwa ka yimaado kursi oo isku qarinaayo hadii lagu qarsoomayo bal ha u yimaado adeerkay Abuukar Xaajiya inta kala hadlaaya adeerkay Generaal Xoog ma aha libaax dadka cuna iyo dhurwaay ma aha Cali Guudlaaw adeer waa nin walaalkeen Cali Guudlaaw gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan waa laba gobol oo la isku darsaday sida gobolada kaleeto adeer Abuukar oo maanta oday adiga ka weyn maanta inuu inta ku yimido oo sidii ilmihii gacanta ku qabta waa ka xumaay maanta adoo gabadhaadii oo maxaan ku iraaday ay nimankan ku maqan tahay adeer Abuukar ma aha maanta gobolkaada adoo fadhiyo oo sharaf iyo haybad ku leh adeer Abuukar inaad fariisato oo lagu yimaado oo la xaltanto oo Cali Guudlaaw ala xantanta ku dhaanta maanta nin laba gobol ee idin dhaxayso ya maanta inuu inta ku yimaado oo gacanta ku qabto aad ugu xumaa adeer Abuukar ya maanta aad ugu xumaa dadka dhiig leh oo damqanaayo oo gabar dhibayso oo gabar xanuunkeeda dhibaayo oo Hiiraan ku nool abti adeera ya maanta Fahd Yaasiin haduu yimaado waa wax damiirtu ay ku bacday oo ku hoogtay waay farmaajo maqal hay isdhigatay nimankii gabadheeda dhibaatayaad adiga soo dirtay maanta ina gobolka Hiiraan ay leeleegsi ku imaadeen heehaadkay ka tahay Soomaali waxay isku disho waa waxaan waxa laga nabadoobi la yahay waa waxaan gabar yar oo 23 jir 24 ay u socotay maanta intaas ay 6 bilood bishii 7 oo January ay bishii 7 ay ku dhex maqan tahay waa ka dan la ahay ilmaadna dhashay ma soconayso farmaajo ma soconaysan ku dhahay dadka ha isku laynin annaga hana hilibkeena afka noo gelisee waranka ka lagu dhufta iyo ka lagu jiljilo haddana jiljilkiya wadiin adii Fahd Yaasiin iyo kulane laakiin waa la eedayaa tan waa la eedaa ballan iyo ahdi waay